صفاء القلب كعبران علماء التصوف كقلبك صافقة سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني بقى لو يديو حالي محا إلهي كوغارتا ليه وحيري إلهي سبحانه وتعالى وحيابها كوغارا وحا كمدا كثرة الصوم ما هم بير صومك والله بديا بير مسلمين تودن با ودا صوما dadka caabidiinta oo dhan ba soonkoodu badan yahay sadaqa badan ma aha dad iga sadaqa badan oo aqniyaha waxa jira wax bixiyo yiri laakiin saddex shay ya ilaahi subhanahu wa ta'ala isiyay biiri saddexdaas aan ku gaaray biiri maqaamaadkan sare bisafa'il qalbi qalbi saafi abir yaan ku gaaray biiri wa sakha'il yadi iyo gacan sakhi ah furan biiri يا وخدمة الرجال أولياء إلهي مشايخ يا ضدك أهل فضلك لجيركو ذي خدمة ذا كم تاي أقواش سيدي الشيخ عبد القادر الجيلاني قدس الله سره ونفعنا الله به مركا صفاء القلب وحوين مر هديس النيداد صافي أهين ونيداد أين هجاك سنين وعقيدة أين توصنين وقلبك أوصن في عنين oo dhanigaaga uusan hagaagsanayn wax badan baa ka halaabay meesha la fiirinayo oo beedka ilaahay qalbiga waa niyada waa meeshaas ilaahay subhanahu wa ta'ala daalcanaya meesha haday hagaagto wax kastaba ay ku hagaagayaan amal iyo cibaado haday ka halowdana wax kasta ay ka halaabayaan ricaayada u baahan ilaalinta u baahan hagaajinta u baahan fiirinta u baahan qalbiga waa marka wadibtu dawiyatan bil qalbigaygana waa hagaajiye fanazaltu fabisabab dhalika markaan jawaarixdaydii nadiifiyay oo shahawaadkii aan ka dheereeyay oo daahirkaygii aan hagaajiyay oo baadinkayga aan hagaajiyay ilaahay wuxuu igu manaystay hunaaka meeshas ilaahay agtiisa hadrada ilaahay iyo qurbiga ilaahay manzilatan aliyatan manzila weyn oo aad u sareysa ya ilaahay ugu manaystay biir innagana waan doonaynaa Soomaa marka safaa'ul qalbi Allah nasiyo insha Allah ya Allah ta Allah noo saafiyeelo ya asufiyo man safa anil kadari sufi waxa la yiraahdaa qofka qalbigiisa ka saafiyeelo waxyaabaha qulubta halee waxyaabaha qulubta wasaqee waxyaabaha qulubta najaaseeya najaasada macnawiga oo faraha badan qofka iska saafiyeela iska tirtira iska hagaajiya kaasa suufi la yiraahdo asufiyo man safa qalbahu anil kadari wamtala'a bil ibari wanqata'a ila Allah wanqata'a ila Allah إلهي حقي سنة أقوى كاسا صوفي ليرا واستوى عنده الذهب والمدر الدنيا دنا إسان سامين وين كويا لنا إلهي سبحانه وتعالى قابلة الدنيا دي سي أعماشي سواحة ضمبا إلهي أخلصه أو إلهي أقول هذا مركا هذا نقول الله إن شاء الله تعالى حديث كان نهاري ضدك أهل الجنة مركا الجنة اللي جريوا أو الجنة أي جلان إلهي رضيه سمركي لسيو وحي هالماميان وح الله وحي يكون حجرين أو نعيم يا هالماميان وهالماميان مركز إلهي سبحانه وتعالى وحكم من نيسان يا هدنا إن حجابك إلهي وكقاضو حجابك بالغا قاضيا حجابك بالغا كوريليا مركز أركيان إلهي سبحانه وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة marka meeshaasay marka wujuhdoodii iftiimaysa oo Ilaahay subhanahu wa ta'ala ay arkayaan oo ay la kulmayaan oo xijaabka laga qaadaya waa xijaabka saaran yahay makhluuqa way Ilaahay maaha xijaabka laga faydaya markaas aragtida Ilaahay bay ku nimcaysanayaan wax alla wixii naciim ah oo dhanba wax yar bay la noqonayaan markii loo fiiriyo Ilaahay ru'yadiisa subhanahu wa ta'ala marka majalistan oo kale xilligaas laga shalaynaya نبينا صلى الله عليه الصلاة والسلام ما جلس قوم مجلسا ضد ما فريستان مكانوا فريسي ما لا يسوء ماذين ومجلسا ما فريستان أيقون إلهي مجلس كان حديثا كحسين كنا سلينين نبي صلى الله عليه الصلاة والسلام إلا كان عليهم تراب النبي عليه الصلاة والسلام مجلس كاسي وحو كن قنايا شليتو
wuxuu ku noqonayaa nusqaan majliskaasi wuxuu ku noqonayaa ceeb iyo dhibaato ayuu ku noqonayaa marka majlis kastoo la isugu yimaado waa in ilaahay lagu xuso majliska dhexdiisa oo dhikriga ilaahay la soo qaado oo xuska ilaahay la soo qaado markii ilaahay lagu xusana hada xabiibkiisu maba ka harayaba sallallahu alayhi wasallam ilaahay iyo rasuulkiisa maba la kala reebaba ma kala harayaan qaala tabaaraka wa tacaala ورفعنا لك ذكرك إلهي بوحو الله قرآن كدحديثا أسوى الله خطاب تما يا نبي نصوبا عليه الصلاة والسلام ذكرك آغا نبي محمد يصلي آغا يحسك آغا كربان قادنا إلهي وكر يالي نبي نصوبا ذكرك إيسا سلي إيسا مدح إيسا سيرة إيسا كشاكين تيسا تاريخ إيسا كل قد مرفوعة ويان ولا كر يالي nabigeennana wuxuu ku fasiray asagoo maaragtay jibriil weydiinaya say jibriil rabbul izza ka xikaayoonaya la udkaru illa wa tudkaru ma'i mar alla markii aniga la xuso adaan lagu xusaya nabi maxamed sallallahu alayhi wasallam marka insha Allah taala waxaan leeyahay naftayda aan u dardaarmaya iyo xaadiriinta mustamiiciinta ahbaabta insha Allah jiiraanka ahlu Nairobi majaalista noocan oo kala inaan badino insha Allah إن نكوكو من هالمجلس مالك استئنان كدقنا إن شاء الله مجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وطيب المجالس نبينا وحي عليه الصلاة والسلام مجالستنا أدقية أو عرفية أو كقرحية صلي يا سلامتا صلي النبي يا سلامتا بديد هذا بير كثرة هذا صلى الله عليه وسلم مركا وعند دار ما إن شاء الله تعالى إنهم بدينهم dadkii hore soo banaa marka fiiriso majaalistooda waa isku iimaan jireen markaas waxay akhrin jireen acdaad fara badan oo salawaadka nabiga kaleey salaatu wasalaam wala iskaalmaysanaya qaala tabaaraka wa taala wa taawanu ala albirri wat taqwa khayrka wala isku kaalmaysta marka wala isku iimaanaya markaas waxa la akhrinaya acdaad kabiira oo hadii kaliya aad tahay fardi aad tahay aadan akhrin kareen عالم الإسلامي أردن وحكم معروفة هو طرق الصوفية منهج كذا إلى سلفي خلف با أنت اللي سكوي معه بقول كن لو بقول كن شام بقول كن ولا كنت كن أنت أصلي يا الأخرين في كل جمعة وفي كل ليلة يا الأخرين اللي سكوي ما نجري مركا إن شاء الله تعالى وحنكسر قاعدة كرنا التاريخ ده أيضا إن شاء الله نبذير أو كم ذا وسoo guuriyay sheeqeeni weynaa oo caalimka ahaa caarifka ahaa culimada Soomaaliya rag ugu waaweynaa kamid ahaa Sheikh Qasim ibn Muhyiddin al-mashhur bi Sheikh Qasim al-Barawi sheeqeena Sheikh Qasim al-Barawi oo taqaanaan wuxuu ku qoray kitaabkiisa wuxuu ku sheegay oo labada sheekhba oo maaragtay sheekh muxuu مشتمل مع كان عينية مجموع القصائد وعشاقي إن مدينة المنورة وجري مجلس كمذا مجالس الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم مجموع القصائد كي قرنتها مركا مجلس كاس أساقا واحد سوحة لرجري مشايخ ذواوين أو مفتياشا سوحة لرجري رجي مجلس كاس أساسي وصوحة لرجري وحا كمدها شيخ لديه جري شيخ أبو بكر بن شطا شيخ أبو بكر بن محمد شطا وحا كمدها شيخ اللي هذا شيخ عمر بن محمد شطا شيخ عثمان بن محمد شطا مشايخ ذي ووينار هي شطا يا مارت مجالس سوحة لرجري وحي أهايان مكة مدينة بقى يجا مفتكاها وحين كمد أهايان وكانوا من تلاميذ مفتي الشافعية في مكة المكرمة مفتي الحرمين الشريفين الإمام الشريف زين الدحلاني شريف كوينا إمام الدحلاني وحي كمد أهايان طلبتي سيكمد أهايان إمام الدحلاني بعد يقيس مكة مدينة بقى يجا مفتكا النقضي مشايخ داس أشرفنا وأهايان علماء وين أهل الله وعالمين أهايان مجالس بي أساسين مدينة ويسوء إيمان جرين في كل شهر مجلس كي أساقها علماء كسو غيب قشا كمدها الشيخ ويس ابن حاجي محمد المعروف بالشيخ ويس حاجي ويس القادري
sheekh Ways baa kamid ahaa culimadii ka soo qayb galay majaalistaas ayada ah buu kamid ahaa marka 10 jeer markii nabiga lagu saliyay alayhi salaatu wasalaam oo sheekhu jadbooday oo maxabooday oo sheekh Ways 10 jeer markuu ku saliyay ya maxaa yeelay de muraadkii madkuurkii baa la helay Soomaa ya waxaan ugu dhikrinayo la amaanaya nabiga alayhi salaatu wasalaam marka 10 jeer waxa la sheegay mashaayikhda sheekh kamid waxaan u maleynayaa Sheekh Abu Bakar bin Shata inuu ahaa wuxuu yiri 100 jeer markii nabiga ku saliyay alayhi salaatu wasalaam yaa waxa la ii furi jiray xadarada rasuulka alayhi salaatu wasalaam yaa warta nabiga iyo aragtida nabiga alayhi salaatu wasalaam baa la ii furi jiray laakiin waxaan la yaabay bir sheekhan Soomaaliga oo madow Afrikaanka 10 jeer markuu ku saliyo nabiga arku yir karaamo badan martaba weyn abiiro karaamo badan abiir marka tawfiiqda Allah na waafajiyo marka majaalista faa'iido weyn bay leeyihiin nataa'ij fara badan bay dhalaan maqaamaad iyo darajaad weyn baa lagu gaaraa qulubta ku nuurta maratib weyn baa lagu gaaraa dadka majaalista salawaadka soo xaadira ayagoo dhanba Ilaahay wuxuu ku daboolaa nuurka nabiga alayhi salaatu wasalaam buu ku daboolaa marka dambe waxay gaaraan inay ka mid noqdaan dadka nabiga arkaya sallallahu alayhi wasallam marka hore manaan baa loogu bilaabayaa kadib waa ka sii gudbayaan maratib weyn iyo darajaad weyn bay gaarayaan natiijadaasna waxay ka dhalanaysaa min majaalis as-salaat wa salaam ala rasuulillaah sallallahu alayhi wasallam marka waxa laga helayaa waxa ku ziyaadaya maxabada nabiga alayhi salaatu wasalaam waxa ku dib noqonaya qulubta marka insha Allah ta'ala ikhwaankii oo dhan baa soo xaadiraya waxa ku tarbiyoobaya jiilka soo koraya iyo maaragtay imaanaysa ya ku saamoobaya salawaadka xabiibka iyo amdaaxda nabiga alayhi salaatu wasalaam waxay saameynaysaa makhluuqaadka idil bay saameynaysaa insi iyo jinniba kulligoodba waa ku ta'athurayaan fawaa'id weyn baa laga gaarayaa marka yaanan yaraynin aan badino insha Allah majaalista sayada fi kulli mantiqa wa fi kulli haafa aan ka dhigna insha Allah aan maaragtay isugu imaano aan xoojino majaalista ayada inagoo maaragtay qasadkeena uu yahay Ilaahay dartiisa ikhlaas anagoo maaragtay amalkeena ku darayna ikhlaasku waxa weey al-ikhlaasu sirrul ibaada عبادة سرت هذا هو ما كان لله دام واتصل وحي إلهي درتي لو لجهده ودائم نقنيان مالنا ويقاريان لكن وحي غرض مارت أغراض دنيوية أما الدنيئة دي لو لجهده مال إرمقاريانو وبربريان marka qasadkeenana aan ka dhigno Ilaahay dartii aan ka dhigno insha Allah ta'ala sidqina iyo daacadnimana aan ku darno sidqigu waxa weyn weeyaan oo la gaari karin qala sayyidi Ahmad ibn Idris qutb daa'irati taqdis Sayyid ibn Idris hadaladiisa waxa kamida wuxuu yiri as-sidqu jawadun la yakbu wa farasun wa sayfun la yanbu daacadnimada cibaadada qabanayso amalka qabanayso si daacad ah oo Ilaahay dartiisa oo sidqi iyo maxaba ay ku dheehanta hadaa u qabato muraadka waa la gaarayaa biir waxa lagu miisaaliyaa faras aan ku faynin fardaha mararka qaar bay sibir rixdaan moogtaa oo ku faano dhacaan sidqigu waxa weeye amalka hadii uu sidqi la jiro meeshii loo rabay buu tagayaa sidii la rajaynayay si ka fiican buu ku imaanayaa ودائم نقنيا وبركوبيا إلهي سبحانه وتعالى خير يا بركو كدهيا الصدق جواد لا يكبو وصيف لا ينبو وسيف عن سون نقنين سيف أفضل أو ماشي لور ذبا ما ركت دي الكرة يا مراتي لقى جاري وين صدقه وحير صيف لا ينبو وإذا تمكن في باب الإرادة مريد لماذا iyo saalignimada hadii sidqiga iyo ikhlaaska ay makansadaan oo si fiican ay u makansadaan la yatawaqqafu li saahibihi shay'un qofkaas mukhliska ah oo saadiqa ah wax ka cuslaanaya iyo wax hor istaagaya iyo wax maaragtay uu ku dhibaatoonaya midna ma jiro wax kastaba waa fududaanayaan يا وبالصلاة عليه سهلا يكون الصعيب يا صلي النبي لو درنا ده وحي ادكا ايغا اسكا فودان دونو بركه حبيبك عليه الصلاه والسلام